Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibada qiimaha badan, kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dilkii iyo cadaalad darradii lagu sameeyey wiil yar oo madow Mareykan ah. Barnaamijkeena intaan u guda gelin, fadlan nagu soo biiro subscribe saar channelkeena Xog Ogaal. George Steiny Jr. wuxuu ahaa qofkii ugu da'yaraa ee dil lagu fuliyo taariikhda Mareykanka. Kaliya wuxuu ahaa 14 jir markii lagu khaarijiyay koronto June 1944. Tan iyo soo qabashadiisa ilaa ay maalinkii dilka lagu fuliyay, wuxuu gacmaha ku haystay kitaabkiisa isagoo ku qaylinaya dembi ma lihi. Waxaa lagu eedeeyay dilka 2 gabdhood oo caddaan ah oo da'ahaan kala jiray 11 sano iyo 7 sano. Caddaynta kaliya ee lagu helay waxay ahayd in meydadka 2 gabdhood laga helay meel u dhow George gurigooda, deegaan caddaanku ku badnaa xilligaas. Dhageysiga dacwadda kaliya waxay socotay 2 saacadood, ciqaabta dilka ahna waxaa dusha loo saaray 10 daqiiqadood kadib. George waalidiintiisa waxaa loo diiday inay xaadiraan qolka ay ka socotay xukunka dacwadda dulmiga ah ee wiilkooda loo haystay. Kadibna waxaaba iyagii lagu xukumay inay magaalada ka guuraan. Dilka ka hor, George wuxuu 81 maalmood ku jiray xabsi 80 mayl u jira magaalada waalidkii ay ku noolaayeen ee Carolina, waxaana loo diiday waalidiintiisa inay arkaan wiilkooda. Wuxuu ahaa keligii, mana haysan cid uu la hadlo. Waxaa la dilay keligii iyadoo aysan la joogin waalidiintiisa iyo xitaa qarankiisa. Dhanka kale, qoyska George ilaa ay maanta kama daalin inay cadaalad u helaan wiilkooda xaqdarrada lagu dilay. Intaas ayuu ku egyahay barnaamijkeena maanta. Fadlan nagu soo biiro subscribe dheh. Mahadsanid.